wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed uu weheliyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland sareeya gaas Maxamed Aadan Saqadhi ayaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay waxaana shir jaraa'id ku qabteen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxaana ay ka jawaabeen hadallo ka soo yeelay asxaabta mucaaradka Somaliland waxaana xuseen in ciidamada booliska Somaliland ay haygan u yihiin hariya habeenba sugidda nabadgelyada Somaliland iyagoo ka hortagaya cidii ku soo xadgudubta isla markaasina khalkhal ku sameeysa amniga iyo nabadgelyada dalka ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Somaliland waxa uuna halkaasi ka sheegay in ciidamada booliska Somaliland ay ilaalinayaan nabadgelyada dalka isla markaasina ilaalinayaan sharciga dalka u yaala anagu hadaanu booliska nahay waxaanu aaminsanay koow inay doonayaan inay sharciga gacanta ku qaataan oo waxay doonaan sameeyaan oo boolisku maadaama ka shuruucda socodsiiyay aanu sharciga iska hortaagin waa koow laba inay doonayaan bulshada inay yiraahdaan waxaan birita sameeynaya ma ku sii sheega birita waxaan sameeynayo ma ku sii sheega waxay doonayaan mudaharaad bila sharciya inay soo qaadaan public order ka inay lumiyaan xasiloonida inay khalkhal gasho booliskuna waa ka ku qasban ee ka hortagaya dabeedna markay dadkaas wax shidaan ama dadkaas wax ridana boolisku ay qabtaan inay dadweynaha uga dhaadhiciyaan dadweynuhu maxaanu idin sheegaynay shalayto ay dadweynaha ka dhaadhiciyaan baladeekada inay isku dilaan qodobka saddexaad bulshada iyo booliska inay kala dilaan oo boolisko saaxiibka dadweynaha oo boolisko naftii dadweynaha oo boolisko ilaaliyaha nafta iyo hantida dadweynaha inay uga dhigaan boolisku inuu cadow yahay leynaya qodobka afraad inay dunida u sheegaan sida waraaqahoodaba ay ku qoraan inay Somaliland tahay meel fawda ah oo dhibi ka taagan tahay oo dimuqraadiyada ka jirin oo sharci ka jirin oo wixii la doono laga sameeyo mudaharaadka qofku xaq buu u leeyahay inuu mudaharaado xaq buu leeyahay isagoo guruba isagoo shakhsiya xaq buu leeyahay qof kasta oo muwaadin in la doorto inuu wax doorto anigu imika in la doortiyana wax doortaba xaq baan u leeyahay laakiin imika inaan madaxweyne isu sharxam xaq baan u leeyahay wasiirka arrimaha gudaha xaq buu leeyahay adigaaga niga soo horjeeday bahalkii horeeya xaq baad u leedahay waa inaad xusbi gashaa waa inaad musharax noqotaa waa inaad xeer ku ogolaada adigoo marka horena dastuurku ku ogolaada inaad xaq u leedahay in lagu doortiyo inaad wax doorato sidaas oo kale ninna xaq uma lahayn inuu iska mudaharaado muwaadin baa tahay dastuurka ku ogol laakiin xeer law number 51 soomar wasaaradda arrimaha gudaha soomar waanu ku ilaalinaynaa waa kula shaqaynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa haddaanu xeer ka aanad soo marin oo dastuurkii qaranka u hogaansanayn waxaad noqonaysaa nin fawda wada waxaad noqonaysaa nin khalkhal gelin abni wada waxaad noqonaysaa qof qarankii meel kaga dhacaya waa ka hor imanayna boolisku shaqadiisii u taagan loogu tala galay public order xasiloonida qaranka u taagan oo suuqyada loogu tala galay taagan baad u imanaysaa shaqo kasta oo maaragtay sharciga aan waafaqsanayn boolisku ma ogolaanayo waa waxaanu u dhaarsanahay cashuurta muwaadinka laga qaada mushaharna loo siiya cashuurta muwaadinka laga qaado ayaa mushaharna loo siiya muwaadinkuna xaq wuxuu noogu leeyahay inaanu amnigiisa ilaalino iyo xaq noogu leeyahay qof kasta noogu leeyahay hooyada noogu leeyahay adigaaga nimka ay wareysanaya iyagu leh dawladda iyagu leh islaamaha qof kasta oo reer Somaliland xaq buu leeyahay amniga mushaharka cashuurta adiga laga qaado waxa la siiyay amniga ilaaliyo kaasaan ilaalinaya qofka sharci darro ku soconayana waa qof amniga Somaliland wax yeelaya waa qof Somaliland dhaawacaya waa qof sharciga dalka ka hor yimi waa qof ay waajib ugu tahay labada gacmoodba ku qabto xildhibaanku hadduu faraha dambi la galo xasaanad male waa la qabanaya hadduu dambi faraha la galo waa la qabanaya qof hadduu dambi qofku faraha la galo waa la qabanaya dibadna shuruucdan horgeynayna iyo maxkamadaha xeeraanta awood waajibaadkeyguna waa ka waajibaadkeyga aan u taaganayna waa kaas ugu dambeyn dadweynaha fariintan u diraya waxa weeyaan dadweynuhu amniga ilaahay baa ka mas'uula anaga naloo dhiib waana lagu aaminsan yahay waxba la hadhi mayno waanu ka adagnay amniga annagoo isku kalsoon baanu amniga ka adagnay wixii amni darro sameynaya nagala shaqeeya
mudaharaad bilaa sharciyana yaan la soo bixin qofka soo baxa isaga ka jawaab sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu ka hadlay ciidamada booliska Somaliland iyo kaalinta muhiimka ah ay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay kaga jiraan difaaca qaranka mudaharaadka marka la sameynayo sharci kasta iyo dal kasta oo dimuqraadiyad jirta uu fasaxna xeer baasal laakiin jira loo maro waa ka inaka aynu marnay law number 51 ayantii dhowto waxaynu arkaynay dawladda Mareykanka oo baarlamaankii dhowr iyo 10 nin oo baarlamaanka oo Koongareeska ku jira katiinada ku wada jabsanta oo la wado askari wado Koongareeska Mareykanka joogeen oo ilaayo dhowr iyo 10 dawladood safiiradooda ay joogeen waxa lagu qiimeeyay in ay tahay doorasho ka dhacda geeskan Afrika mantaqadan inuu ku noolaatii ugu fiicnay saxaafaddu meelaha qaarkood arrimaha ma buunbuuniyaan waxna kama sheegaan waana xilalka qaranku idinka saaran yahay hadda gogol gareynaysan Somaliland election 2021 wixii laga qoray bay dun akhriyi karaysan arrintan markaa waxaan maanta leenahay qaran kasta xiniyaha uu ku faana waa ciidamadiisa qalabka sida qaran kasta xuduudda uu ku faana waa ciidamadiisa qalabka sida qaran kasta xoogga uu soo bandhiga waa ciidamadiisa qalabka sida maalmaha dabaaldega qaranka cidda dabaaldegta waa ciidamada qaranka ayaantii dhaweyto 18 May xusbiyada mucaaridkii waxay nagu diideen inaanay inta kale nagala qayb galin haddii aanay doonaynin dabaaldega subaxnimada ciidanka qaranka kaliya inay joogaan marka waxaad arkaysaa marka iyaga uma aha maanta ciidanka qaranka laakiin waxaan leenahay oo aan la hadlayaa dadka iyo bulshada ay ciidanka qaranka u yihiin dadka waxaan u sheegayaa ciidanka idin ilaaliya ciidanka aad habeenkii ku seexataan ciidanka dhaqaalaha iyo ganacsiga aad leedihiin maxaan ku dhahdaaye ilaaliya ciidanka nabadgelyadiina bulshadiina ilaaliya waa ciidamada booliiska qaranka Somaliland iyo ciidamada kale ee qaranka waxay idin la socotaan ta ugu yar imtixaanaadka sanawiga ah marka la galayo ciidanka qore ee jooga ee aan seexanin waa ciidanka booliiska maxaan ku dhahday sanduuqa imtixaanka daba taagan ee ilaalinta la jooga ee marka imtixaanka la soo gabagabeeyay soo celiya oo ilaa iyo xarunta maxaan ku dhahday imtixaanaadka la keeno aan ka harin waa iyaga waa ciidanka marka doorashada la joogo ilaa iyo maalinta sanaaduuqda la qaybinayo ee ay gobolka tegayso ee gobolka ka tegayso degmada tegayso ee degmada ka tegayso tuulada tegayso ee tuulada ka tegayso goobta tegayso ciidanka jooga waa isaga ciidanka kale la ilaaliya waa ciidamada qaranka ee militariga asluubta immigrationka ilaalada xeebaha waa kuwa waxaan leenahay markaa waan ka xumahay inay xusbina yihiin qarankana doonayaan inay berita yidhaahdaan waanu idin xukumaynaa inay jawaabta cambaaraynta ciidamadeena ka bixinayaan waxaan leenahay markaa saaxiibayaal sidaa xisbi qaran sideedii u dhaqma oo ciidamadu waa ciidamadiinii qarankan dhib dheer baa loo soo maray dhibaato badan baa loo soo maray dadkii dhibta u soo martay baa tihiin dadkii halganka u soo gelay baa tihiin dadkii dhidiba uu aasidooda la soo dagaalamay baa ku soo dagaalamay baa tihiin subax walba wuxuu ku waabariisto habeen walba waxa gobolka ugu dhaco dadka og baa tihiin yaanay idin niyad jabinin cid masaalixda qarankana ka soo horjeeda idinkana aan idin aqoonsanayn inaad dadka dhaxanta u joogto tihiin inaad dadka ciidamadooda aad tihiin yaanay idin niyad jabinin saaxiibadeeda waxaan idinkula talinaynaa xaydnaanka nabadgelyada iyo xaydnaanka dowladnimada
iyo xaydaanka doonaysan inaa Somaliland dowladnimadeeda ku hanantaan dib ugu soo noqda.